waxaanu ka hadlaynaa cabasho oo aanu ka nahay dawladda aanu cabasho uga nahay oo aanu uga nahay ma garanaysaa dawlad deegaanka ah cabasho uga nahay arrin aad iyo aad ma garanaysaa xaalad aad u adag ah yaa meesha taalla waxaa yaalla waxaana hadda ka hor waqti kastoo aan joognay baan hadda ka hor saacaddan wax ka horreeya aana soo marin waxaana soo maray maanta waxaa weeyaan waxaa dhacday rag islaama oo iska qodanahaya baraag yaa loo yeeday markii u horreysay lambar 14 nin baa la isku soo ururiyay 14 nin la isku soo ururiyay xabad baa lagu bilaabay waralay bay ahay bakada way ku joogeen nimankii noocaas ahaa sidaas ahaa ilaahayga weyna waxda shan buu xabad ku riday intii kale ilaahay waa badbaadiyay intaas markay dhacday markaanu ka dhowreynay dawladda ama kala qabasho inay dhacdo ama ma garanaysaa ay arrintaas ma garanaysaa jawaab iyo falcelis ay ka bixiso waxay nooga falcelisay magaaladii 20 sano dhisnayd ee Dar es Salaam la dhihi jiray ee caasimadda ahayd ee kontonka baraagood ay ka biyeysnaayeen ee dadka masaakiinta iyo dadka magayay dadka dirmagaydu ay taagnaayeen in ayadina dubin loogu daro macal masaajidkeedii dhulka in lala simo oo dhulka lala simo dadkii joogeen la barakiciyay oo uu qaxay oo ilaa saacadan meel lagu furay la garan la yahay waxaanu leenahay ma garanaysaa arrintaas oo arrin aad iyo aad noo dhigtay weeye arrin ma garanaysaa aan loo dulqaadan karin weeye waxaanu cabasho ka nahay haddee dawlad deegaankii waanu aragnay inay ka wada socotana waanu u malaynaynaa waxaanu cabasho u nahay bahalkii ahaa waxaanu cabasho u nahay dawladda waxaanu cabasho u nahay federaalkaanu cabasho u nahay hadda dawlad deegaankii waanu aragnay cabasho aanu hadda u gudbisanayna ma jirto madaxdeedii way joogtaa madaxdeedii oo dhan oo kala hooseysa oo hadday ciidamo ahayd iyo hadday maamul ahaydba way joogaan oo arrinta nimanka samaynaya falkan samaynaya waa ayaga maadaama ay falkan samaynaya hadda cabasho aan u gudbisana ma garanayno marka laakiin cabashada hadda waxaan u gudbisanaynaa waxa weeyaan dawladda federaalka ah weeye arrinta waxaanu malaynaynaa annagu rag gaaruhu oo cadiifad cad samaynaya inuu ka shaqeeyo waxaanu doonaynaa cadiifad in ma garanaysaa nabadgelyo cadiifad uma soo dabaasho nabadgelyadii faraha inay ka bixiyeen oo nabadgelyadii saaka ay faraha ka baxday markii hore ay macna lahayn oo ka dari oo boqol jibaarmi oo dabkaas uu ziyaado noqoni yaanu u maleeynaa waxaan kale u maleeynaa nimanka hadda arrintaas samaynayaan waxaa la arki jiray oo dhici jirtay bariga onlifta jirtay baa ninka raba onlif inay siyaado wuxuu samayn jiray shacabku leey jiray uu ku bilaabi jiray baabaa ka dhigi jiray si uu shacabkaas u baxo annagu hadda waxaanu maleeynaa dadka arrintaas samaynaya falkaas samaynayaan ammaanku inuu faraha ka baxo wax la soo qabta la waayo meel wax laga qabta la waayo arrintaas uu doonayaa ma doonayo inuu ma garanaysaa nabad soo noqotana ma rabo nabadna kama uu shaqaynayo ammaankiina saaku faraha ka bixiyay hadda annagu hadda odayaasha haddaanu nahay qabiilka annaga nabadgelyadaas hadda wax naga weydiinaya ma jiraan wax naga weydiin kara haba yaraatee ma jiraan marka intaasaan annagu ka cabaynaa wabillahi tawfiiq assalamu calaykum